xaflad si heer sare loo soo agaasimay oo lagu soo dhaweynayay xildhibaan Maryan Maxamed Xuseen Duuliye ayaa waxa lagu qabtay magaalada London. xafladan oo ay ka soo qayb galeen jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Ingiriiska ayaa waxa ugu horeyntii hadallo soo dhaweynaa ka jeedisay wasiiradii hore ee caafimaadka Marwo Xaawa Xasan Maxamed. waxaana hadallada wasiiradii hore ka mid ahaa intaan wasiirka ahaa Maryan way la soo shaqaysay garabkeygii soo istaagtay xamarna way ugu soo dhaweysay. Thank you so much. maanta waxaan ku faraxsanahay aniga inaan London ku soo dhaweeyo ay aragto saan u noolnahay nolosheena say tahay gabdhaheena say yihiin. marka Maryan soo dhawow. waxaa kaloo ka hadlay isla xafladaasi qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay xafladaasi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa Maryan waxaan leeyahay Maryan ku soo dhawaaw London mar labaad ku soo dhawaaw mar saddexaad ku soo dhawaaw ma malaynayo hadaa baxda xataa inaan ku hilmaamayno waa ku xasuusanaa mar walbo waxaan rabnaa inaan walaasheena ka tusino waxaan nahay. ugu dambeyntii waxaa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay xildhibaanad Maryan Maxamed Xuseen Duuliye iyadoo si aad ugu mahad celisay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Ingiriiska soo dhaweyntii wanaagsanayd ay u sameeyeen inta ay ku sugnayd magaalada London. waxaana hadalladeeda ka mid ahaa gabdhaheennii Soomaaliyo raas caseer ilaa raas Kamboni caawa halkan fadhiyo aan lagu kala maqnayn aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa qabanqaabiyaasha hawshan ka soo shaqeeyay oo u dhabar adeegay ayagoo biri shaqo leh inay caawa halkaa igula caweeyaan aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin. weligayna idinma iloowi doono hablaha Soomaaliyeedna waa tiir dhaxaadka Soomaaliya. waxaa la arkay habluhu inay sharaf iyo qiimo leeyihiin dagaalkii sokeeye markuu dhacay. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay caawa oo aan soo koobi karin dad aanan arkin ilaa burburkii sidoo u dhacay aan caawa halkaan ku arko aan isku meel ku noolaan jirnay aan isku meel joogi jirnay aan isla shaqayn jirnay waa wax aan weligay iloobaynin. taasoo ayna kala geysay muxuu ahay dhibka dhacay oo annagana aan wadankii ka soo bixin ayagana u soo haajireen wadamo shisheeye. waxaan idin leeyahay wadankii waa fiican yahay alxamdulillaah. wadankii waa soo kabsaday developmentii uu rabaa in la hormariyo wadankii dib ha loo soo noqdo ilmahana ha la soo celiyo. Abdullaahi Xasan Maxamed Wiish, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, London.